ha ku sirmin kabahooda duugoobay ee ay xirnaayeen gudaha bakhaar xoolo oo ay lahaayeen ayay ku qarsanayeen gaari Rolls Royce ah oo qiimihiisu gaarayay 10 milyan inkasta oo ay ku noolaayeen guri aad u liita. haddana waxay cuni jireen homi melon qarbe macaan qiimihiisu gaarayo 10,000 halkii rodol. lamaanahan waxay ahaayeen dadka ugu hantida badan dalka, balse si ay ilmahooda uga dhisaan adkaysi iyo karti ayay u guureen miyiga. mar walba waxay iska dhigi jireen dad sabool ah. wiilkoodu si dhab ah ayuu u rumaysnaa in qoyskoodu sabool yahay. si uu waalidkiis u caawiyo wuxuu iska diiwaangeliyey barnaamij telefishan oo uu ilmo sabool ah kula noolaanayo qoys taajir ah. markii waalidkii maqleen arrintaas si buuxda ayay u taageereen, xitaa waxay u diyaariyeen boorso cunto ah oo qiimaheedu gaarayo 10 milyan. laakiin wiilku ma ogeyn in alaabtaasi ay aad u qaali tahay. wuxuu u haystay keliya wax soo saar deegaan ah, wuuna la aaday magaalada. dhanka kale qoyska taajirka ah ee martigelinayay wiilka waxay aad u jeclaayeen inay hantidooda ku faanaan telefishinka qaranka. markii ay soo dhoweeyeen wiilka waxay diyaariyeen casho aad u weyn. waxaa yaalay bariis qiimihiisu yahay 9 halkii rodol iyo miro kale oo qiimahoodu gaarayo 10,000. xitaa daawadayaasha bannaanka barnaamijka joogay waxay ammaaneen deeqsinimada qoyska taajirka. intii lagu guda jiray cashada, haweenaydii taajirka ahayd waxay weydiisay wiilka sida uu u dareemayo cunista bariiska 9 halkii rodol si lama filaan ah. wiilku wuxuu ku jawaabay in uu la mid yahay bariiska ay gurigooda ka cunaan. wiilka qoyska taajirka ah ayaa ku qoslay isagoo yidhi, bariiskan wuxuu ku kacayaa 9 halkii rodol, sidee ayay qoyskaagu u awoodaan? wuxuu intaas ku daray in dadka saboolka ahi ay jecel yihiin iska dhigid iyo faan. daawadayaashu waxay sii ammaaneen qoyska taajirka ah iyagoo ku tilmaamay kuwa aad u deeqsi ah. agaasimihii barnaamijku wuxuu wiilka ku yidhi inuusan been sheegin, halka daawadayaasha internetkuna ay bilaabeen inay xanaaqaan. wiilku wuxuu dareemay dulmi wuxuuna yidhi inuusan been sheegin. haweenaydii taajirka ahayd ayaa markaas siisay wiilka koob maraq ah. wiilku uu u mahad celiyey wuxuuna yidhi hooyadii ayaa mar walba u samaysa maraq la mid ah kan. wiilka taajirka ah ayaa aad u xanaaqay wuxuuna yidhi, tani waa maraq boqoshada Matsutake, qiimaheedu waa in ka badan 3 halkii rodol. wiilku wuxuu ku jawaabay in waalidkiis ay qalajiyaan boqoshaad buuxisa dhammaan dayrarkooda. daawadayaashu waxay u haysteen inuu been sheegayo, waxayna bilaabeen faalooyin xunxun. wiilku wuxuu yidhi ma ay wada dhammayn karin boqoshadaas, islamarkaana ay inta badan siiyaan deriskooda. wiilka taajirka ah ayaa ku yidhi, waxaad halkan u timid barnaamij, ma ahan inaad sheekooyin ka samaysato. wiilku isagoo sii murugaysan ayuu farta ku fiiqay homi melonka wuxuuna yidhi hooyadii waxay siisaa mid maalin kasta. haweenaydii taajirka ahayd ayaa canaanatay kuna eedaysay been. wiilku wuxuu xusuustay inuu subaxnimadii keenay mid, balse uu ka tegay maadaama uu u malaynayay in dadka magaalada aysan jeclaan doonin. qof walba wuxuu rumaysnaa inuu iska dhigayo. ugu dambayn wiilkii isagoo dareemaya dulmi ayuu soo saaray dhammaan alaabtii deegaanka ee uu watay, balse qoyska taajirka ah ayaa hoos u eegay wax walba. miyigii waalidkii wiilka ayaa si toos ah u daawanayay baahinta. aad bay u caroodeen, waxayna go'aansadeen inay yimaadaan si ay u difaacaan wiilkood. wiil yar ayaa markii ugu horeysay hadal ku dhawaaqay si uu uga difaaco walaashiis Agajuglayn. gabadhii yarayd aad bay u faraxday markay maqashay codkiisa. waxaa la ogaaday in wiilka yar uu tan iyo carruurnimadiisii la noolaa cudur daran oo autism ah. maalin kasta ayuu isku xiri jiray qolkiisa, cidna lama hadli jirin. maalin maalmaha ka mid ah, lamaane hodan ah ayaa agoonta ka soo korsaday gabar yar. gabadhani aad bay u hadal badnayd. markay qoyska timid, maalin kasta waxay ag joogtay wiilka, waxayna u sheekayn jirtay sheekooyin. sababtoo ah carruurtii agoonta joogtay way necbaayeen hadalkeeda badan, laakiin walaalkeed hortiisa way hadli kartay ay doonto. xiriirka labadooduna si tartiib ah ayuu u noqday mid dhow oo isfahan leh. markii waalidkii hodanka ahaa ay arkeen sida ay gabadhu u naxariis badan tahay, waxay go'aansadeen inay iskuul diraan. gabadhu waxay weydiisay in ay walaalkeed la wada aado iskuulka, balse waalidku waxay ka baqeen in meelaha dadku ku badan yahay ay wiilkooda cabsigeliyaan. gabadhu waxay u sheegtay inay baaritaan samaysay, islamarkaana ay ogaatay in la falgalka carruurta ay dadiisu la mid tahay ay ka caawin karto xaaladiisa. ugu dambayn waalidku way ogolaadeen in wiilkoodu isku dayo inuu guriga ka baxo. markay gabadhu warkan maqashay, farxad ayay ugu sheegtay walaalkeed. maalintii xigtay labadoodii waxay wada tageen iskuulka. gabadhu aad bay ugu faraxsanayd deegaanka cusub, halka wiilkuna gadaal ka socday isagoo cabsi dareemaya. markay aragtay sida uu walaalkeed u baqayo, gacantiisa ayay qabatay si ay u dejiso. markaas ayaa dhowr arday jidka ka hor istaageen, waxayna ku jeesjeeseen wiilka iyagoo ku tilmaamay mid aamusan. gabadhu markaas ayay fahantay sababta uu walaalkeedu neceb yahay iskuulka. iyadoo hortiisa istaagtay ayay difaacday, waxayna ka eriyey ardaydii kale. kadib waxay dhinac u jiiday walaalkeed si ay u dejiso, waxayna u ballanqaaday inaysan marnaba u ogolaan doonin in cidna dhibaatayso. gabadhu waxay boorsadeeda ka soo saartay saacad taleefan ah, waxayna ku tiri walaalkeed, haddii wax kugu dhacaan ii soo wac. inkasta oo wiilku weli ka baqayay hadallada ardayda kale, gabadhu mar walba way u soo ordaysay, waxayna weydiin jirtay haddii uu waxyeello soo gaadhay, iyadoo ku dhiirigelinaysay inuu saaxiibo yeesho. maalin dambe gabadhu waxay raadinaysay walaalkeed, balse meelna kama helin. si lama filaan ah, saacadeedii taleefanka ayaa dhawaaqday. waxay maqashay codadka arday kale, markaas ayay garatay in walaalkeed la hareereeyey. iyadoo adeegsanaysa goobta saacadu muujisay ayay ku carartay garoonka kubadda koleyga. waxay qaadatay ul basebal ah si ay u difaacdo walaalkeed, balse maadaama ay dad badnaayeen, waxay ku tiri walaalkeed inuu u tago waalidkood si gargaar loo helo. islamarkiiba gabadhii dhulka ayaa lagu tuuray.
wiilkii yaraa ayaa qaaday ultii basebalka wuxuuna ku qayliyey hadhibina walaashay. markay guriga ku noqdeen gabadhii waxay fuushay sariirta walaalkeed waxayna weydiisay inuu weli hadli karo. wiilkii yaraa isagoo eegaya gabadha u muuqatay sida malaa'ig afkiisa ayuu furay wuxuuna ugu yeeray walaashay.